بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waxaan halkan kusoo gudbidnoonaa ordadan hadda socda ee ka socda dalka Tokyo ordadaas oo qabsoomi doona ordo kala duwan waxayna ka bilaami doonaan 100 mitir ee caadiga 110 mitir 200 mitir 400 mitir 400 mitir hayga 800 mitir 1500 mitir 3000 mitir ee istiibalka 5000 mitir 10000 mitir full marathonka halkaas orodyahanno badan oo caalamka ka mid ah ay ka soo qayb galeen orodkan maanta dhacay wuxuu ahaa orod xiisihiisa leh orodkaasoo waxaa ninka kaalinta labaad soo baxay ee Girma uu ka kufay birta hase ahaatee dadaalkeeda iyo waxa uu muujiyey awoodiisa iyo kartidiisa waxa uu soo baxay kaalinta labaad waa halka uu ka guuleystay Albakali oo ka socda dalka Morocco oo ah orodyahan aad birta iskugu fiican yihiin uu mitirkiisuna uu aad u dheer yahay inkastoo mitir ahaan uu ka wasiin naqneen Girma laakiinse orodkaasi waxa ay guusha ku hantiyey Albakali Sufyaan Albakali oo u dhashay dalka Morocco orodkan maanta wuxuu ahaa orod xiisihiisa leh orod qiimo iyo qadarin ku leh waxaa isdaba joogsaday kaalinta koowaad iyo kaalinta labaadba Afrika ahaan waxaana soo bandhigi doonaa waqti kasta iyo mar kasta siday ordadu u dhacaan iyo kaalmaha lasoo kala galo iyo inta biladooda la kala qaato imika ahaan wax bilada waxaa weli hantiyey 10,000 mitir ee gabdhaha halkaasoo ay kaalinta koowaad ka soo baxday Shebeet oo ah gabadh Kenyaati ah kaalinta saddexaadna waxaa baxay gabadh Ethiopian ah gabadha Ethiopianka Tsegay kaalinta saddexaad bay baxday kaalinta labaad xagay ka baxday gabadh Italiya u dhalatay gabadha Italiya u dhalatay Baatokoleedna kaalinta labaad bay halka ku guuleysatay saddex kaalmood waa laba Afrikaan iyo xabad European ah